their presenter. Coming to Adado is one of my dreams. Actually, not only Adado, going to another country was actually my dreams when I was young. You know, in those days when you study. aad ayaad u mahadsan tahay soo jeediyey farxad ayay ii tahay inaan imaado Cadaado kaligeed maahan inaan dal kala tago waxay ahayd riyadeyda markaan ahaa dhalinyaro markaad waxbarashada dhamayso waxa laga yaabaa inaad dal kala tagto si aad u hesho shaqo taasi waxay ahayd riyadeyda markaan ahaa dhalinyarada laakiin haatan waxaan Cadaado u imid inaan cilmiga aan dalkayga kala imid gaar ahaan luqadda Ingiriiska aan baro bulshada ku nool Cadaado iyo guud ahaan Soomaaliya taasi waa sababta aan u imid Cadaado ma jirto sabab kale oo aan u imid halkan ku biiristeedii diinta islaamka aan ku biiray ma jirto cid igu qasabtay inaan diinta islaamka qaato dadka aan u shaqeeyo iguma qasbin laakiin diinta islaamka aad ayaan u jeclaa aniga dalkayga Uganda waxa ka jirta kala duwanaanta diimaha sida islaamka kirishtaanka iyo kuwa kale markii aan iimaanayay Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay ma jiro qof igu qasbay inaan qaato diinta islaamka ama xitaa igala hadlay qaadashada diinta islaamka aniga ayay si qalbiyan ah igu dhalatay inaan qaato diinta islaamka laakiin markaan arkay sida ay u dhaqmayaan bulshada muslimka ah ee Soomaaliya sida ay iskula socdaan isku caawinayaan u wada tukanayaan way soo jiidatay runtii waxay igu dhiirigelisay inaan qaato diinta islaamka sida aan ku sheegay aniga haatan wali waan ku cusbahay diinta islaamka hadda ayaan baranayaa xoogaa wax ku saabsan diinta islaamka ku dhawaad sanad ayaan ahay muslim As I told you, I'm still new in this religion as a special Muslim. xoogaa ayaan ka bartay quraanka kariimka waxay ahayd xilli lagu gada jiray bisha barakeysan ee Ramadaan waxay ahayd markii ugu horeysay aan Ramadaanka ku soo aado nolosheyda waxaan aqrin jiray quraanka kariimka waxaan bilaabay inaan barto oo fahmo diinta islaamka quraanka iyo ahadiista laga wariyay nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee barashada quraanka kariimka waa arin aad muhiimad gaar ah u leh waayo quraanka waxa uu sharaxayaa sida ay noqonayso dadka muslimiinta ah noloshooda inay iscaawiyaan dadka muslimiinta midba midka kale dhiirigelin ayuu quraanku u sameeyaa dadka toosan sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen noloshooda dambe si guud quraanku wuxuu ka hadlayaa sida caadiga ah cadaaladda in dadka muslimiinta ah midba kan kale uu caawiyo dhiirigelin ayuu quraanku u sameeyaa dadka muslimiinta ah dhammaan kuwaasi waa waxa aan ka bartay quraanka kariimka waa arin aad muhiim u ah dhammaan waxa uu ka hadlayo quraanka kariimka runtii aniga aad ayaan ugu raaxaystay barashada quraanka kariimka waxaan qorsheynayaa inaan maalin walba wax ka barto quraanka waliba aniga waxaan aqriyaa quraanka haatan waxaan rabaa inaan ku sheego nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaan haystaa sheekooyin ku saabsan isaga mararka qaar waxaan ka daawadaa YouTube-ka markaan dhageysanayo taariikhda nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaan ka maqlay wax wanaagsan iyo inuu yahay qofka ugu wanaagsan ee muslimiinta ay tahay inay ku daydaan isla markaana ay raacaan dabeecadihiisa iyo sunnihiisa waa arin khasab ah haddii rabto inaad noqoto qof toosan oo muslim ah inaad raacdo nabi Muhammad wadadiisa nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waan xifdin karaa quraanka kariimka ah caqabada kaliya ee aan wajahayo waa luqadda uu ku qoran yahay quraanka oo ah Carabi oo igu adag waxaan haystaa kitaabo quraanka kariimka ah oo lagu turjumay 3 luqad waxaan ogahay in tirada suuradaha quraanka kariimka ay yihiin 114 suuradood suuradda ugu dheer quraanka waa suuratul baqara ee aan bartay sidoo kale si fiican markaad u fahanto suuradahan ama aad aqriso waxaad arki kartaa in xog badan ay ku jiraan suuradahan lagana rabo qofka muslimka ah inuu barto laakiin waxaan rabaa inaan ka ballan qaado bilooyin ama sanado kadib haddii Allah idmo inaan barto quraanka iyo falanqayntiisa waxaan kaloo rabaa inaan si fiican u barto quraanka sidoo kale waxaan rabaa inaan barto luqadda Carabiga ah oo laga maarmaan ay tahay qofka muslimka ah inuu barto The sum of surahs there are around 114 surahs out of which the longest surah is Al-Barak. Al-Barak. Thank you so much. Okay. This question is really funny and it demands also su'aashan waa mid kaftan leh una baahan in laga jawaabo tan iyo markaan imid Cadaado iskuma dayin inaan ku lug yeesho arrimaha xiriirada gabdhaha iyo jacaylka maxaa yeelay sidoo kale dhaqanka Soomaalida waa mid aad u xoogan oo aan ogolaanaynin xiriirada laga maarmi karo ee aan loo baahnayn sidoo kale quraanka kariimka barashadiisa waxayna baraysaa inaan la ogolayn xiriir jacayl oo aan loo sinayn wuxuuna tusayaa quraanka in la rabo jacaylka labada qof inuu noqdo mid daacad ah oo sal adag leh kaasi oo ugu dambeyn ku dhamaada guur rasmi ah sidaas darteed dhammaan markii aan falanqeeyay arrimahan
iskuma dayin xiriir jacayl waxaa laga yaabaa inaan jeclaan lahaa inaan sameeyo xiriir jacayl naf ahaanteyda laakiin caqabada ay haysata waxay tahay ma garanayo luqadda Soomaaliga inta badan gabdhaha Soomaalida ah waxay ku hadlaan luqadda Soomaaliga waxaa laga yaabaa inaan gabar la hadlo oo aan dhaho see tahay waa fiicanahay oo aan dhaho waan ku jecelahay laakiin waxay igu jawaabayso ma fahmi karo oo warku wuu xirmayaa sidaas darteed uma socdo haatan inaan sameeyo xiriir jacayl waayo luqadda Soomaaliga ayaa igu adag laakiin markii aan barto luqadda Soomaaliga hadduu alla idmo waxaan la sameyn doonaa xiriir jacayl gabdhaha Soomaalida waana guursan doonaa aad ayaad u mahadsan tahay. Now maybe I will ask a girl Seta maybe will say wafiana and then when I say wanguchalai then he will say something then that marks the end of my language. So I cannot go ahead talking some relationship issues. The challenge is the Somali language. Otherwise, inshallah, if I will learn Somali language, I think I will involve myself in also love and marry Somali girls. Thank you so much.